seed u jeclaan lahayd inaad noqoto shaqo kasta oo soo baxda ama company kasta inay offer ku siiyaan oo aadan noqonin qofka kambaniyada wacaya qofka shaqada raadinaya ee aad tahay inay dadku ku og yihiin oo lagu soo waco oo offer lagu sameeyo haddaba ma ahan wax uu qofku iska noqdo waa wax uu qofku u noqdo ku talagal iyo inuu sameeyo dhowrkan qodob maxaa yeelay company kasta wuxuu raadinayaa qof mas'uuliyadda ama la sheergareeya mas'uuliyadda uu companygaas leeyahay ama goolka uu leeyahay waxyaabaha lagu noqdo oo ugu horeysa waxaa ka mid ah in aad tahay qof lagu tashan karo in aad tahay qof lagu tashan karo oo taladiisu ama tashiinadiisu ay tahay wixii loo dhiibo wuxuu saarayaa ama loogu halayn karaa inuu meel saaro waxaad arkaysaa dhibaatooyinka kambaniyada ay qabaan ama dadkuba ay inta badan arkaan in marka kambaniga laga shaqaynayo ama qofka uu shaqo raadinayo dadka qaarkood ay arkaan dhibaatada ama problemka ay arkaan laakiin qofka noocaan oo lagu tashan karo ma ahan qof dhibaatooyinka arka ma ahan qof challenge-ga arka ma ahan qof qashinka kambaniga dhexdiisa wareejiya ama negative ka wareejiya waa qof dhowrkan waxyaalood isku darsaday ee ay aad iyo aad u yar tahay in uu shaqo la'aan noqdo waxaana normally dhacdo qofka dabeecadaha noocan leh xataa hadduu kambaniga hoos ka bilaabo in uu gaaro meelaha ugu sarreysa ayadoo laga yaabo inuusan degree haysanin laakiin dhowrkan quality uu haysto oo qualityyooyinkan ay ku kaalmeeyaan ama ay ku kobciyaan qofkaanu in uu kor u kaco qofkaanu ma aha qof complain gareeya mana aha qof explain gareeya markii dhibaata dhacdo he doesn't complain he doesn't explain dhibaatada saas u dhacday wuxuu qaataa responsibility uu leeyahay I am responsible to this waxaanan u baahanahay inaan xal u helo aan saddexdaanu ku mashquulaa number 1 wuxuu sameeyaa anytime uu kambaniga dhexdiisa problem ku arko ama uu challenge arko wuxuu la fariistaa ama uu sameeyaa inuu u raadiyo inuu xal helo hadduu arko biyo daadanayo wuxuu raadiyaa iyagoon loo dirin biyaha